magaalada muqdisho oo maalmihii ugu dambeysay ka nasanaysay dhawaqa iyo sidoo kale madaafiicda hoobiyaasha habeenka lagu garaaca ayaa xaaladaha amniga daraadood waxaa habeenadii ugu dambeeyey si weyn baaritaano looga dareemayey gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana wadooyinka qaybo ka mid a gobolka banaadir sida wadada makaal mukarama haddaba caawa abaara 9:15 mirir ayaa la maqlay dhowr madfac ama hoobiyaal oo ku soo dhacay qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir kuwaas oo iyana si weyn ay u adag tahay in loo ogaado xaqiiqada rasmiga ah iyo khasaaraha ka dhashay madaafiicda ama hoobiyaashaasi waxaa jira xiriiro kala duwan oo aanu la samaynayna degmooyinka inta badan aan ka warhayno ee ay ku soo dhaceen hoobiyaashaasi oo ay ka mid yihiin degmooyinka xamarweyne xamar jajab dharkiinley hodan iyo weliba daynile wariyahayaga axmed saciid axmed ayaa mid ula socday isla markaasina si weyn u baadigoobaya haddana stuudiyaha ayuu u soo tallaabay axmed habeen wanaagsan marka xigana bal faahfaahin kooban inaga sii meelaha ay ku dhaceen hoobiyaashaasi iyo khasaarooyinka ilaa inta hadda la ogyahay oo ay geysteen cumar xabiib nuur aad iyo aad u mahadsan tahay caawa baara 9:15 daqiiqo ah dhowr madaafiic ayaa ku soo dhacday degmooyin ka tirsan gobolkan banaadir adiga ayaa xusay degmooyinka ay madaafiicdu ku soo dhacday waxa kamid ah xamarweyne waxa kamid ah dharkeenley waxa kamid ah hodan iyo degmada daynile haddii aynu kala qaadno degmada xamarweyne waxa la sheegayaa in dhowr madfac ay ku soo dhacday oo madaafiicda ku soo dhacday laakiin yani hoobiyaal ay ogyiin hadda sida aan ku helayno xogta oo si rasmi ah loo sheegi karin sidaas oo kale gubta waxa la leeyahay daynila ka tirsan sidaas oo kale dhowr xaba ayaa iyana ku dhacday dharkeenley sidaas oo kale iyana way ku dhaceen marka khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay hoobiyaashaas lagu soo garaacay ama lagu soo tuuray caawa xaafado ka tirsan magaalada muqdisho lama xaqiijin karo hoobiyaasheena iyo dadka deegaanka oo ku sugan oo degmooyinka ku kala sugan oo la xiriirnayna waxay sheegayaan in wax khasaare ah aysan xaqiijin karin sababta ugu weyn ee khasaaraha aan loo xaqiijin karin waxaa lagu macnaynayaa in dadku aysan awoodi karin inay banaanka u soo baxaan baqdin badan dadka qaarkood ayaa dareemaya oo aysan awoodi karin inay banaanka u soo baxaan sidaas oo kale ciidamo ayaa lagu daadiyey degmooyinka hoobiyaasha ay ku soo dhaceen xaafadaha ka tirsan iyo wadooyinka intaba ciidamaha lagu daadiyey wariyaashiina qaarkood oo ku sugan degmooyinka madaafiicda ay ku soo dhaceen ma awoodaan inay banaanka u baxaan because ciidamo ammaan ayaa meesha jooga waxaa kaloo la dareemayaa baqdin badan marka adiga haddii laysku soo duuduubo guud ahaan wax khasaare ah oo ilaa hadda aanu xaqiijinay ma jiraan yani waxaana loo anaynayaa xilliga oo ah xilli dambe iyo ciidamo fara badan oo wadooyinka daadsan gaar ahaan degmooyinka waxyaabaha ay ku soo dhacdhaceen waa sidaas cumar waadna og tahay oo dhowr habeen ka hor sidaan oo kale magaalada muqdisho sidaan ayaa hoobiyaal loogu soo garaacay hay-adaha amniga oo ka hadlay waxay sheegeen in ay ahaayeen dheemish ama waxyaaba aan qarxaynin oo keliya dadka lagu baqdan gelinaya marka ilaa hadda ma xaqiijin karno khasaaraha dhabta ee ka dhashay iyo weliba inay yihiin dheemish oo wax qarxa aysan ahaynin ma kala xaqiijin karno laakiin guud ahaan wax khasaare ah oo ka dhashay madaafiicdii caawa lagu garaacay muqdisho oo aynu dhihi karno intaas ama tiradaas aynu ku sheegi karno ma jirto laakiin waxaa inaga xasuusina inaan la xiriiri doono gudoomiyaasha degmooyinka marka ciidamada hadda sida tusaale ahaan markaad wariyaasha la xiriiraysay dadka goobjoogayaasha hadda meelaha inta badan ay wax ka dhacdhaceen ka agdhow ama dariska la-ah ma kuu sheegeen wax baaritaana iyo howlgallo oo ciidamadu ay wadaan maya waxaa lii sheegay in ciidamadu ay wadooyinka soo buuxdhaafiyeen xaafadaha ay kusoo dhaceen qaarkood ay ciidamo ku hareeraysan yihiin oo wax dhaqdhaqaaqa oo marka ciidanka laga reebo aysan ka jirin degmooyinka ay kusoo dhacday tiradaas hoobiyaasha axmed waa mahadsantaha intaada ka bixin waxaan jeclahay abaara 9:15 daqiiqa meelahaas ayaa inta badan maqalkeeda aniga xitaa laftigaygu intaan barnaamijkan diyaarinaya aan maqlaya marka ilaa hadda ma socotaa ilaan adigaa dhowr mar banaanka u baxayo xog raadinayay marka mase way yani hadda degan tahay adiga hadda xaaladda waqtigan aan la hadlayno dhegeystayaasha way degan tahay xaaladdu laakiin daqiiqada ka hor way soo gaareen hoobiyaasha laakiin hadda xaaladdu way degan tahay isla xilligan aad ila hadlayso oo aad soo xarootay wadooyinka laftigooda sida makaal mukarama iyo ciidamo ma laga dareemaya iyo dhaqdhaqaaq waa jiraan ciidamadu weliba xamarweyne ayaa ugu badan degmada xamarweyne meelaha ugu badan ee ciidamadu caawa ay soo buuxdhaafiyeen waata aad baad u mahadsantahay axmed saciid axmed wixii ku soo kordha intaanu ku guda jirna barnaamijkana hoobiyaashaas caawa lagu garaacay qaybo ka mid a magaalada muqdisho